munaasabadan cashada oo lagu sagootinaya madaxda dowlad goboleedka dalka ee ka qayb galay shirka golaha amniga qaranka ayaa xil lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee Xamar. maamulka gobolka Banaadir ayaa soo qaban qaabiyay munaasabadan waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubno ka tirsan golayaasha qaranka iyo heer dowlad goboleed iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka hadlay munaasabada ayaa xusay in shacabka Muqdisho ay horseed u yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed. marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeedna madaxweynayaal aad bay idin soo dhaweynayaan, aad baan idinkaga raalinahay. magaaladana waxa ka go'an inay ka shaqeyso weligeedna horseed u ahayd ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda, wadajirkeeda iyo wada shaqeynteedaba. madaxweynayaasha dowlad goboleedka Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabelle ayaa maamulka gobolka Banaadir uga mahad celiyay casharaftan u sameeyay, waxayna xuseen in dhammaan madaxda dowlad goboleed iyo dowladda dhexe ay si wadajir uga shaqeyn doonaan sidii Muqdisho u yeelan lahayd maqaam siyaasadeed. waxaan rajaynaynaa shirkiisa kale oo sida la iclaamiyay ka dhici doona magaalada Baydhabo tilaabahaas tilaabo ka xoog badan aan ku qaadi doono haddii Ilaahay idmo, oo ay ka mid tahay ka hadlidda iyo meel isla dhigidda maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. inta kale annaga haddaan nahay dowlad goboleedyada waa diyaar garownay dalka inaan isku furno, waxaan u diyaar garownay inaan maaragtay tillaabooyin adag qaadno annaga iyo dowladda federaalka. waxaan is leeyahay arrintaasi waa arrin dastuuriya, dhowr goor horena waan ka hadalay in la qeexo maqaamka caasimadda gobolka waxa uu yeelanayo waa mid qof walba Soomaaliya dan ugu jirto faa'iido ay u tahay in la dedejiyo sida hadda shirarkii ugu dambeeyay baan ku sheegaynay. arrintaasna aan isku xamanin baa doonaynaa. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin, cashada waa ka mahadnaqaynaa, khayr guul baan idin rajaynayaa. Soomaaliya dhawaad waa mahadsantihiin. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay soo martay marxalad adag balse hadda ay ku jirto xilli wanaagsan. bini'aadanka dabcigiisu wuxuu iska yahay wixii uu haystaba jeebka kor u gashadaa, wax kaloo gacanta u soo taagtaa. waa loo baahan yahay inaan mar walba hore u sii socno, laakiin xaqiiqadu waxay tahay muddo gaaban ka hor magaaladan xafladan haddii furin lagu tusi lahaa oo la dhihi lahaa magaaladani meeshaanay ku dambayn doontaa waa la qariibsan lahaa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabada ayaa tilmaamay in sanadka 2018 uu dalkan u yahay muhiim isla markaana ay laga maarmaan tahay in lagu dejiyo ama lagu dhammaystiro hanaanka doorasho ee sanadka 2020 iyo qorshayaashii dalkeena looga saari lahaa faqriga iyo gaajada si himilooyinka looga dhabeeyana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay garab siiyaan dowladooda. inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego sanadka 2018 waa sanad muhiim u ah dalka Soomaaliyeed. waxaan kulligiin markaa idinka codsanaynaa inaad gacan nagu siisaan inaan ka wada hadalno oo ka heshiino sida ummadda Soomaaliyeed ay uga kaaftoomi lahayd tuugsiga, uga bixi lahayd gaajada, una soo saaran lahayd khayraadkooda. waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan in la dhammaystiro dastuurka qabyada ummadda Soomaaliyeed. waxaan idinkala codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan inaan go'aan ka gaarno nooca doorasho uu dalku yeelanayo. waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dowlad noocee ah ayuu dalku yeelanayaa. waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan cadaalad noocee ah oo dalku heshiis ku yahay ayaan yeelanaynaa. waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dal noocee ah ayaad rabtaan inaan yeelano, xiriir noocee ah ayaad rabtaan dalka dunida ku xeeran inaan la yeelano. su-aalo waaweyn oo sanado badan ay qaadanayso in laga jawaabo ayaa hortaagan ummadda Soomaaliyeed 2018 iyo 2019. haddii aan 2018 su-aalahaas aad ku adag la isweydiin 2020 ma gaarayna meesha aan joogno. waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ka soo baxay shirka uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ugu horeeyay in la bilaabay in la aqbalo inaan ka heshiino sidii loo qaybsan lahaa khayraadka oo lagu bilaabay kalluumaysiga.
in loo ballamay 28 maarso in la isugu yimaado Baydhabo oo laga heshiiyo khayraadka intiisa kale sidaan ula soo bixi lahayn in lagu heshiiyo marka la isugu yimaado waqtigaas isaga doorashada noocee ayuu dalku qaadanayo laakiin waxaa la isla gartay oo aan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo haddii ilaahay lagu guuleeyo inaan ka jawaabno su'aalahaas adag in awoodda loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay madaxda qaranku waxay isla garteen inaan gelino xoog iyo maskax walba oo aan awoodno si dalka loo gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod. Nasir Bashir Ali, warbaahinta qaranka, xarunta gobolka Banaadir, magaalada caasimadda